maamulka gobolka Baay iyo deeqraashin aan dhibi dadka ka noolaan xerooyinka barakacyaalka magaalada Baydhabo aan soo diirayeen qoys deeqdaas oo ha ku dirti dawladda ammaan faafahinta warkaasay bay bandhigayeen Faisal Sahal in ku badan qoys oo danyar oo la ku xuli kaamamka barakacyaalka magaalada Baydhabo iyo ku faa'iideysadii deeqraashin ee ku koyti dawladda ammaan raashin ku qoyn iska jaray burburi sokor saliid iyo caano booro yamay ballanka talagalay intii ka soomaan dadka danyarta ee ka jara kaamamka kiyaala magaalada Baydhabo xana soo qarjoon awoodna intii ka soomaan waliyo shaqaysadeen mayna raashinka la ka shaqeeyay qaybo badan oo ku tirsan magaalada Baydhabo xana soonto badan iyo kooyan dadka barakacyaalka ee ka talagalay intii la deersay deeqdoon Abdurrahman Muxuddin Jamaale oo hay qofkii lahan wakiilada raashinka iyo sheegay intii sidii lanka talagalay oo deersiyeen dadka danyarta ee marka la qaybtii labaad aan rabnaa marka inaan u wareejino dadkii masaakiinta loogu talagalay Ramadaanka oo ka yimid dawladda Cumaan waxaan leenahay dawladda shacabka Federaalka taageerada garab taagan yihiin shacabka Soomaaliyeed sanad kasta oo Ramadaan ilaa wuxuu soo aaday raashin loo baahnaa oo ay ka faa'iideysteen dad badan oo masaakiin u baahan aad iyo aad ay u maasantiin leenahay dhammaan raashinkii waxaan soo gabagabeynayna maanta aad iyo aad u maasantiin assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh tirsan dadkii ku faa'iideysaday deeqdoon yaan mahadnaqay dawladda Cumaan iyo shacabka iyagoo sidaas oo kale dhan mahadnaqay qof walba oo gacan ku jeysaday intii deeqdoon la hadeersi magaalada Baydhabo ee xarun goboleedka Baay شكرا لله والله ما زنتين بولكي ولا ما زنتين بولكي بني أفردك سلامتي سلام بعد شيء أنت من دفت أنت من أنو ما هذه من شكرا يا أنت من دفت من قدر سلام الله لكن جرجاركم شيء لا بشيء بس جرجار ارزق إلهي نشاني مارنا أنت نشاني عندنا كما هاد نغانا دولة أمانة نديبتي الدنيا آخر الله أنك ميل قوض وعويان ونون مارنا أمام فايلة ونباهن نانا نسي مركون تاس دارتيا مارنا يان ما هاد نغان علي وردير عبد الرحمن قدوميها قبل كبايان ما هاد نغي دولة عمان تاس أنت بدن شعبك الصوماليات ينقر جارسة حلية ذلك قدو جار بلا بركة سنة رمضان أنت نقول لي إنه جايبين راشينكي أو توي رمضان اللي قتال وصلدنا عمان يعني ديبتي ما عندكم ما هالنغانة بورك سلطان عمان يو شعبي سلوف فيلون توي بالكستو رمضان مدي هقال معاون راشين كأوضة تكسوهم من دير سيان مركا إن شاء الله جيبكم مدة قبلك يا لسيا أنتكم مدة ميلك لبا مركا بقبلك أبلي فندراديس ما يفضل إن شاء الله مستقبل كان هني أنا توي أني كردي ولا هتنسيان مركا إيد أنكم ما هالنغان إلى خير قصي saas oo kale gargaarka may bala deersay xarada agoonta iyo ka jaran ee Alxunayn iyaduna maamulka xarada iyo ku mahadnaqeen gargaarka iyo hadeersiyeen dawladda Cumaan shacabye ما بعد أولا نشكر سلطنة عمان التي جابت إلينا أكل طعام بمختلف الأنواع وفيها زيت وفيها حليب وفيها دقيق وفيها سكر وفيها أرز وفيها إسباجيتا يعني بمختلف الأنواع وأيضا هذا الطعام ونخرج له هذا أقوامة الحنين ونخرج له ما يبان كوي مساعدة أما ضيق وكويتي دولة سلطنة عمان وكويتي يا جيك يا راشين كاس يعني قابضي راشين لأك بقول قوس أو نركض راشين هل سنة راشين نيفلن يعني نشانتي يعني نشاني ما إن الله نمرسي هيئة صومالي أو سمفل يا الله نمرسي عبد الرحمن محدين جمالي أو هايلان كلها وكيل ذي ديغدون إيا حسي انتي تان إيا ناقض دون جرجاركين كهوري وسوغون الشيء انتي جرجاركم إيو جي دونان قوتان دالك صوماليا سينا عدد هذا نسيدي وكرواي وحكسو آد راشنكو حلي آد بوغو باهناي ورمضان لجوغو وأفر وأمد وأيو باهنتاي وحمد عيني دمان شعبك عمان هي دولة ديسة سيدة تاغيرة له وآد وناكسنو شعبك سوماليد وقرب تاغيين وحن لنا هاي جزاكم الله خير آد ومحسنتين إلى الدنيا آخرة هيدي كود الزيو لذلك إيو قرب استاق آد وسميسان دادك سوماليد وتباليسان حل اللي جرى بيش بركيسان هذا رمضان وآد لغو باهناي راشنكو وحوسكو جرى راشنكي قيبيس كلا دوان waxaan halkan ila taagan dadkii agoontan
wakiilka u ahaa oo dee waxbarashadooda iyo adeegooda iyo nidaamkooda saaciidayay dowladda Cumaan Maybay ku mid ah dowlado inta badan taageerada siiyo dowladda Soomaaliyeed magaalada Baydhabo ee xarun goboleedka Baynagee ka Maybay hadeersiina raashin lanka talagal intii ka samata baxan dadka barakacayaalka ee ka jira kaamamka qiyaala magaalada Baydhabo maadaama bil barakaysan ay tiyo bilaabatay Faisal Maxamed Isaaq warbaahinta Koonfur Galbeed Baydhabo